musharax Ibraahin Aadan Awqoobi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddanka Mareykanka oo isagu dhawaan shaaciyay inuu u tartami doono doorashada golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex ayaa warmurtiyeed soo saaray waxa uu tafaasiil dheeraad kaga bixiyay sababta keentay inuu jagadaasi isugu soo sharaxo 17 sanadood ee ugu dambeeyay waxaan si uu la socday siyaasadda Soomaaliland waxaan cilmi baadhis ku sameeyay nidaamka dimuqraadiyadeed iyo asxaabta badan aynu qaadanay sidoo kale xogogaal noqoshada shuruucaha iyo xeerarka dastuurka ee laga soo alkumay axdi qarameedkii shirarkii Burco ee 1991 iyo shirkii Boorame ee 1993 ee Soomaaliland lagu soo dhisay waxaan waqti badan angeliyay dhugashada iyo sidii la isku waafajin lahaa dhaqanka bulshada iyo nidaamka dawladnimo ee dalkeena ka hana qaaday marxaladaha iyo waqtigii siyaasadeed ee adkaa ee ku dhigan taariikhdeena aan shacabkeenu si dhib yar u ilaawi karin tusaale ahaan siyaasadaha kala talisnimada xoriyad la'aanta cadaalad darrada iyo xukun jacaylka aan tala wadaaga ku dhisnayn guulaha Soomaaliland gaadhay 28 sano ee dhinacyada nabadgelyada amniga dhaqaalaha horumarka bulshada ayaa ku timid nidaamka shacbiga waxaana shacabka reer Soomaaliland ay ku caanbaxeen isturxaan bixinta isu tanaasulka iyo wada hadal inay ku dhameeyaan hadba wixii dhex yimaada taasoo ay sabab u tahay dhaqanka iyo diinta isku dhafan waana sifaha ay gooni u leeyihiin dadka reer Soomaaliland furana waa asaaska noloshooda tan iyo intii ay Soomaaliland ay bilowday doorashooyinka xorta ah iyo hanaanka xisbiyada badan ayaa qaybo badan oo bulshada ka mid ah lagu doodiyay xuquuqdooda siyaasiga ahayd dhalinyarada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay ayaa ka mid ahaa korarka tirada aqoon-yahanada daayarta ayaa sababay in arrintaasi doodo badan ay dhinacyada sharciga lagu sameeyo isla markaana ay soo baxaan ururo u doodaya xuquuqda qaybahaasi bulshada ka midka ah ee aan soo sheegnay tanina waxay suuro gelinaysaa inay u muuqato xuduudda ay dadkeenani ay ku dhex leeyihiin bulshada gaar ahaan dhalinyarada sidaas daraaddeedna waxaan gacan ka siin doonaa cid kastoo arrintaasi gacanta kaga shaqaynaysa waxaanan ku matali doonaa golaha xeerdejinta waxaanan taageeri doonaa barnaamij kasta oo siyaasadeed oo khuseeya arrimaha iyo wax kasta oo ummadda Soomaaliland horseedi kara sinaan iyo cadaalad haddaba markii aan dirsay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 41aad ee shuruucda qofka isu taagiyo doorashada golaha wakiilada iyo xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer nambar 19/2020 markii aan ku qancay aqoontayda waayo aragnimadeeda iyo kartideeda inaan buuxin karo shuruudahaasi looga baahan yahay musharaxa golaha wakiilada waxaan go'aansaday inaan isu soo taago doorashada golaha wakiilada ee Soomaaliland ee ku mudaysan sanadka dambe ee 2021 fariintana waxay hordhac u tahay fikirkayga guud iyo dareenka la xejecelo ee aan u hayo waddankayga guud ahaana waa midaan ku tusinayo aragtideeda fog iyo qorshaha siyaasadeed ee aan ku faani karo wax ka qabashada haddii Allah awoodda la qabto weedhani waxay u taagan tahay awoodda u diyaargarowga mas'uuliyadda qaran waxaan rumaysanahay inaan si hufan u gudan doono xilka iyo mas'uuliyadaba waxaan idin xaqiijinayaa inaan idinkaydii adeegi doono danta guud si daacadnimo iyo xil gudasho leh waxaan marti idinka hay codkiina waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin dhageysan doono goor kasta iyo gaar ahaan markasta aad ka hadlaysaan dantiina iyo baahiyihiina asaasiga ta deegaanka aad ku nooshihiin iyo guud ahaan inaan codkiina gaarsiiyo golaha wakiilada marka qaranka wax loo qaybinayo bayaanka uu soo saaray musharax Ibraahin Aadan Awqoobi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee dalka Mareykanka ayaa dhinaca kale waxa uu ugu mahadceliyay cid kasta oo garab ku siisay isu soo sharaxida doorashada golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa